السلام عليكم كسو دوادا channel ka dhaxalgal maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc xasaasi ah tuugada internetka hackerska waxaa lagu tiriyaa tuugada ugu caqliga badan ee dunida ayagoo ku bixinayaan waqti badan barashada ama baadigoobka sidii loo dhici lahaa computer hackerska waxay sababaan sanad waliba khasaaro adduun lacageed gaaraysa 2 bilyan ilaa 4 bilyan ayagoo ka dhigaysa tuugada ugu halisan caalamka aynu ku noolnahay caalamka cusubi dhamaadkii qarnigii 20aad iyo bilowgii qarnigii 21aad dunida wax ay ku naaloonaysay dunida haddeer aan u naqaano digital world dunida teknolojiyada wax waliba waxay isu bedeleen dhanka kombiyuutarada internetka hadday ahaan lahayd waxbarashada bangiyada biyaha korontada dhammaan aaladaha nolosha xitaa tuugadii waxay isu bedeshay qolo ku qaraabta teknolojiyada la jaan qaada casriga xitaa dadka ugu lacagta badan ee dunida waxay lacagahoodii ka sameeyaan mise ay ku tiirsan yihiin ganacsigooda internetka ka bilow ninka ugu horeeya hantiilaha dunida Jeff Bezos kambanigan uu leeyahay Amazon Elon Musk labadan kambani uu leeyahay Tesla iyo SpaceX Seward Bill Gates Mark Zuckerberg Larry Page Larry Ellison dhammaan top 10ka kaliya 3 qof ayaan ka ahayn bilyaneerada ugu sareeya dunida dad aan ganacsigooda si direct ah ugu tiirsaneen internetka hackerska kaliya kuma eka xatooyi lacag xitaa waxaa lagu tiriyaa inay kambaniyo badan ay suuqa ka saareen oo khasaaraha ay geliyeen dartooda haddaba halkan hoose waxaan ku qaadan doonaa noocyada hackerska ay u kala baxaan white hat hackerska koofiyadda hackerskan waa nooca ugu fiican waana nooca anaga ina taageera waa dadkan u shaqeeya kambaniyada sida Google Facebook iyo bangiyada waa dadka ka hortaga inay dhacaan weerarada internetka waana dadkan ilaaliya lacagaheena waana dad u tababaran xirfadlayaal sidii loo difaaci lahaa ama loo soo saari lahaa dulduleelyada shirkadaha ka hor inta aysan weerarin dadka xunxun waxaa jira nooc labaad waa nooca koofi madowga black hat hacker noocani waa nooca ugu halisan ee aad la kulmi karto waana dadka geysta khasaaraha ugu badan ee lacagaha ka dhaca internetka nooca saddexaad koofi griije amaba grey hat hacker noocani waa nooc u shaqeeya marna dad wanaagsan marna dad laalaab wata sida mar waxay u shaqeystaan kuwa koofi madowda marna kuwa koofi cadda waxaa jira qolo kale oo lagu magacaabo activist qoladani ujeedkooda ma ahan inay dhacaan dadka amaba ujeedo gaarna kama lahan inay dadka lacagaha ka dhacaan ujeedkooda ugu weyn waa inay bedelaan fikrado ama aragtiyo ay soo bandhigaan dareemahooda sida xiliyada mudaharaadka inay xiraan account qaar dad ay leeyihiin dawlad ay ka soo horjeestaan waxyaalo noocaas nooca ugu dambeeya ee sponsor hackers amaba nation hackers wadan waliba dunida kamid ah waxa uu leeyahay qayb u qaabilsan hackers u qaabilsan inay ku duulaan dawladaha kale sidoo kale ay basaasan dawladaha kale ayna soo qabtaan arrimaha la xiriira wadamada kale dhaqdhaqaaqoodana si hoos ula socdaan hackerskan waa qolo ay leedahay dawladda waxayna ka tirsan yihiin ciidanka ayagoo lagu xulanayo in ay soo dhameeyeen jaamacad ay ugu soo baxeen computerka cilmiga computerka amaba qofka in uu yaqaan xirfadda computerka wax badanna uu ku soo dhex jiray qoladan waxaa loo aaniyay oo kaliya inay basaasaan dadka kale sidoo kale ay fuliyaan weeraro qarsoodi ah xitaa dawladdu aysan sheeganin mowduucan wuxuu noqon doonaa mowduuc taxana ah oo aan ugu hadli doono hackerska isbuuca soo socda waxaan ka hadli doonaa hal iyo laba ka mid ah hackerskii ugu waaweynaa ee dunida kuwaasoo inoo suurageliyay in dunida teknolojiyada maanta ay isbedesho